tani imaashihii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed dowladdeegaanka Soomaalida waxaa ku socday weerar ay geysanayaan qoomiyadaha Oromada iyo Canfarta weeraradan ayaa inta badan salka ku hayay dhul ballaarsi xasuuq gumaad iyo sidoo kale barakicin loo geysanayo shacabka dowladdeegaanka Soomaalida waxaa si weyn loo xasuustaa in muddo dheer uu dagaal ka socday galbeedka gobolka City kaas oo lagu qaatay deegaanada Cadaytu Candhuufto iyo Garbaciise Soomaalida halkaas ku sugnayd ay soo barakiciyeen xogaga Canfarta oo garab ka helaya ciidamada militariga dalka Ethiopia sida ay ku odayaasha dhaqanka oo marar kala duwan ka hadlay warbaahinta gudaha ee deegaanka Soomaalida marka laga yimaado Canfarta waxaa soo baxayay weeraro qarsoon oo ay geysanayeen xogaga Oromada deegaanada Mooyaale Gurradhamoole iyo degmada Tulli Guleed waxaa ka socday weeraro isdaba joog ah oo ay geysanayeen ciidamada liyu booliska dowladdeegaanka Oromia weeraradaasi waxaa lagu gumaaday shacab Soomaaliyeed oo tiro badan sidoo kalena waxaa lagu barakiciyay tiro arila iyo hadda ciidayn sidoo kale waxaa soo baxayay oo shacabka Soomaaliyeed ay si weyn u ogaayeen in Oromadu ay waday dhismo degmooyin cusub qabaleeyo dhaamam iskuulo iyo sidoo kale goobo muhiim ah taasoo inta badan dowladdeegaanka Oromia uu ku fidsanayay xuduudda uu la wadaaga dowladdeegaanka Soomaalida sidoo kale kalkii hore aynu soo dhaafnay waxaa jiray in ay soo baxayeen maabab ama khariirado la xidhiidha in Oromia ay samaysatay kaas oo ah in ay ku darsatay dhul badan oo Soomaalidu ay leedahay Soomaalida ayaana walaac iyo calaacal ka muujisay qaabka Oromadu ay iskugu fidinayso dowladdeegaanka Soomaalida iyo isbalaadhintooda marka laga yimaado dareenka Soomaalida ee la xidhiidha in Oromadu ay doonayso dhulka Soomaaliyeed warbaahinta Ethiopia ayaa hadda daha ka qaaday damaca Oromada ee ku aadan dalka Soomaaliyeed Ethiopia Forum News oo ah warbaahinta loogu dhageysi badan yahay gudaha dalka Ethiopia ayaa soo bandhigtay damaca Oromada kaasoo qeexaya khariirad ama map ay sameeyeen oo ay kula wareegeen 16 degmo oo ka tirsan dowladdeegaanka Soomaalida degmooyinkan ayaa ka tirsan gobolada Liibaan Daawa Afdheer Erar iyo sidoo kale gobolka Faafan ee dowladdeegaanka Soomaalida khariiradan ayaa sidoo kale muujinaysa in Oromadu ay bataatanba ku darsatay deegaankeeda magaalada Diridhaba oo muran xoogan uu ka taagnaa dhowr bilood ka horna la xasuusto in Oromadu ay soo jeedisay in Diridhaba lagu daro dowladdeegaanka Oromia ama se laga dhigo kilan madax bannaan oo Oromadu ay maamulato xogtan ay baahisay warbaahinta Ethiopia ayaa la sheegay in ay dejiyeen khubaro siyaasiyiin aqoon-yahano iyo sidoo kale xubno ka tirsan baarlamaanka dowladdeegaanka Oromia lana horgeeyay xukuumadda madaxweyne Shimeles Abdiisa madaxweynaha dowladdeegaanka Oromia lagala tashaday uuna ka aqbal arrintaasi waxaana la xaqiijiyay in Oromadu ay doonayso in mar dhow arrintaasi ay u gudbiso golaha Federationka Ethiopia si loogu ansixiyo dhoolkaasi xukuumadda dowladdeegaanka Soomaalida oo iyadu inta badan jecel isdhariijinta isbeen fariinka malawaalka iyo sidoo kale xogaan ku salaysnayn xaqaa'iqa dhabta ah ee la xidhiidha damaca qoomiyadaha Oromada iyo Canfarta ayaan iyadu wax qorshe iyo istiraatiijiyada kala ahayn barnaamijkan Oromadu ay ku doonayso inay kula wareegto dhulka Soomaaliyeed waxaana la xasuustaa in xukuumadda dowladdeegaanka Soomaalida ay saartay xilligii uu socday dagaalkii u dhaxeeyay Soomaalida iyo Canfarta ayna sheegtay in xogta Soomaalidu ay soo gudbinaysay ah in Canfartu ay dhulka Soomaaliyeed doonayso uu yahay waxba kama jiraan balse ugu dambeyntii wax walba ay cadaadeen markii Canfartu ay la wareegtay 3 deegaan sidoo kalena ay baabiiyeen ciidankii liyu booliska dowladdeegaanka Soomaalida qaybo ka midana ay maxaabiis ahaan u qabteen iyadoo ay ognahay in shacabkii Soomaaliyeed ee halkaasi ka soo qaxay maanta ay daadsan yihiin magaalooyinka Diridhaba Jigjiga Shiniile Afdam ay Shaca iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka City ilaa iyo haddana ma jirto qorshe maarayn istiraatiijiyad aragti fikir iyo sidoo kale ficil ay ku doonayso in dadkaasi Soomaaliyeed lagu celiyo dhulkoodii si la mid ah Oromada oo dareentay in Soomaalidu aysan lahayn ficil ay ku difaacato dhulkeeda sidoo kalena ay kaga hortagto khataraha ay maleegahayaan ayaana hadda diyaarisay in 16 degmo oo ka tirsan dowladdeegaanka Soomaalida lagu wareejiyo dowladdeegaanka Oromia lana horgeeyo golaha Federationka Ethiopia hadda hadal xog warbixin news iyo warbaahin ayay joogtaa balse waxaa la filayaa in maalin maalmaha ka mid ah Oromadu ay soo bandhigtay arrintaas lamana garan karo ficilka aragtida iyo qorshaha Soomaalidu ka qaadan doonto inkastoo ay jireen in Oromadu ay been u sheegaysay shacab Soomaaliyeed oo ku sugan qaybo ka mid ah xuduudda dowladdeegaanka Soomaalidu la wadaaga dowladdeegaanka Oromia kuwaasi oo ay ku lahaayeen asalkiinii waxaad ka soo jeedaan qoomiyadda Oromada halka qaybo kale oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed lagu kasbaday xifaaltan xamaasad been abuurid iyo sidoo kale in iyagu aysan Soomaalida kale waxdan iyo daryeel ka lahayn deegaanadoodana ay yihiin kuwa ugu dibdhacsan dowladdeegaanka Soomaalida iyo guud ahaan Ethiopia sidoo kalena Oromadu ay doonayso in ay u samayso nolol naruuro iyo horumar ballaaran oo ay kaga maarmi karaan dowladdeegaanka Soomaalida waxaana baraha bulshada iyo warbaahinta Soomaalida lagu arkay odayaal dhaqameed Soomaaliyeed oo iyagu leh waxaanu ka goonay dowladdeegaanka Soomaalida waxaan ku biiray dowladdeegaanka Oromia asalkanagu Oromo ayuu ahaa waxaan u aragnaa in aanu la noolaan karo Oromada halka madaxweyne Mustafa oo qaybo ka mid ah gobolka Faafan iyo City oo socdaal uu ku marahayay lagu mudaharaaday isagoo
la soo baxay calanka dowlad deegaanka Oromiya taas ayaana lagu macneeyay inuu yahay qorshe ama istiraatiijiyad dheer oo Oromadu ay u dejisay shacabka Soomaaliyeed halka warbixinada qaarna ay tibaaxayaan in isfidinta Oromada kaliya uusan ku saabsanayn dowlad deegaanka Soomaalida balse ay u gudbi doonaan Soomaalida xorta ah halka warbixinada qaar ay xusayaan in Oromadu ay doonayso ama quduruureynayso inay la wareegaan dekada Saylac oo u arkaan inay tahay dekada kaliya ay isticmaali karaan waxaana la xasuusan yahay in imaashihii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu tababaray kumanaan ka tirsan ciidanka badda ee dalka Ethiopia isagoo sidoo kale soo gatay maraakiib iyo sidoo kale doomaha dagaalka ee ciidamadu ay kaga howlgalaan badaha balse lama oga dalkan aan badda lahayn halka uu isu diyaarinayo iyo badda uu doonayo inuu la wareego waxayna Soomaalidu si weyn isula dhexmaraysaa in qorshaha Abiy Ahmed iyo Oromadu uu yahay in 40 milyan ee Oromada ah loo raadiyo dhulbadeed ay waxna kala soo degaan waxna ka dhoofistaan taas oo inta badan lala xiriirinayo inuu yahay dhulalka Soomaalida inkastoo aynan haynin xaqiiqada dhabta ah haddana Ethiopia waxay ka mid tahay wadamo aan bad lahayn oo tababartay ciidamadaas Ethiopia ayaa labadeedii badood ee muhiimka weyday kadib markii Eritrea ay ka go'day dalkaasi waxayna noqotay Ethiopia mid go'doonsan oo aan xiriir badeed la lahayn caalamka intiisa kale balse tababarka ciidamada militariga badda Ethiopia ayaa ah su'aal la isweydiin karo iyo sidoo kale su'aashaas ayaadna muddo hadda in jawaab loo helayo maadaama Oromadu ay isu diyaarisay sidii ay ula wareegi lahayd dhul badan oo Soomaalidu ay degan tahay damaca Oromada ee doonista qaybo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida ayaan la ogeyn in uu hirgeli doono inkastoo aysan jirin Soomaali hadda u diyaarsan iska difaacidda Oromada iyo ka hortagooda ayna Soomaalidu kala qaybsan tahay qabiil jifo deegaan tuulo sidoo kalena ay yihiin dad lagu kasban kara sifa fudud haddaba adigu sidaad u aragtaa in Oromadu maanta ay soo bandhigto 16 degmo oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida in khariirad ahaan ama maab ahaan lagu daray dowlad deegaanka Oromiya mise ku muuqata in Oromadu ay hirgelin doonto qorshaha iyo istiraatiijiyadda ay ka leedahay la wareegada dhulka Soomaaliyeed ma jira dareen Soomaalinimo oo lagu difaaci karo dhulkaasi mise sidii galbeedka city ayaynu ka samri doonaa